bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulantiha boondaawadyaal idlahaantiinba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii 12aad ee taxanaheennii irbadii eelka reebtay qaybtan waxa ay ku bilaamaysaa sidan buugaagta miiska qolka u saaran ayay inta badan waqtigeeda ku qaadataa ayaamihii hore oo dhan waan la yaabi jiray waxaan u haystay in ay iskaga mashquulinayso xaqiiqada hortaalla runtuse malahayga way ka fogayd dabeecad cajiiba ayay i bartay xaqiiqooyin kale ayaad faalaynaysaa rogrogaysaa wax macno lehna kala soo baxaysaa dad kale ayaad la noolaanaysaa adoon idin uga qaadan duni ay dawaafideedu waqti kugu qaadan lahaydna saacadaad ku dulmaraysaa waxaan odhan karayaa buugtaasina saami aan yarayn bay ku lahaayeen ololihii bushaaro boqorlaydiisa badan lahayd subaxnimo ayaan fasalkii ku soo kallahnay sidii caadada ahaydna duruustii qaadanay waa macallin Mahdi oo casharkiisa xamaasad gaar ah loo hayo wax badan maanta ma dhigin kaliyaata waraaqo ayuu noo qaybshay markuu wax yar fasalka ku jiray qaybo ayuu noo kala saaray meelo kala duwanna wuu na fadhiisiyey si aan wadar ahaan uga shaqayno koox ayuu madax iiga dhigay warqadihiina iigu dhiibay muddo ayaan rogrogaynay oo ka doodaynay su'aalo adkaa oo ku saabsanaa maaraynta iyo sida loo wajihi karo nolosha dad badan oo mid ka mid ah daraasadihii ugu dambeeyay sheegeen in ay xanuunkan la nool yihiin markiiba waan habeeyey kooxdaydii takhdiidna waxaan u dejinnay dib u dejinta dadka iyo nidaamkii loo wajihi lahaa waqtigiina loo qabtay uu dhammaaday warqadihiina waana la ka ururiyey deetana fasax ayaan galnay isbuuc kadib ayaan helnay hambalyada nooga timi maamulka sare oo soo bogaadiyey shaxdii aan u dejinnay dadkii dhibaataysnaa kooxdaydii baa guulaysatay aan idhaahdo maya waan wada guulaysanay maadaama oo maqsadku badbaadinta dadkuun ahaa maalintaa laga bilaabo il gaara ayaa laygu eegay oo awood qarsoon ayaa laygu tuhmay dhowr jeer baa macallinku howlo adag ii xil saaray anna howlkarnimaan muujiyey kala wareeggii sanadka ayay ahayd bil kaliyaata ayaana ka harsanayn qabashada doorasho sannadeedka loo qabto cidda haynaysa maamulka ururka dhibanayaasha u adeega maamulkaasi wuxuu awood u leeyahay inuu ka qayb qaato shir caalami ah oo ururka guud ee dhibanayaasha aidhisku qabtaan dadkaana maarayntooda lagaga arrinsado sanadkii ugu dambeeyey aadam oo dadaal iyo karti dheeraada u dhashay ayaa hogaaminayay kan soo socdana lama garanayo inuu sii haysanayo iyo in cidi bedeli doonto subaxnimo axada anigoo asxaabta waqti la qaadanaya ayaa dalab iiga yimid xafiiska macallin Mahdi markaan u tagay soo dhaweyn kadib wuxuu hadal iiga bilaabay waad ogtahay ururkeenu sanad walba inuu doorasho qabto waxa inaga xiga waa 3 toddobaad marka waxaan kugula talin lahaa inaad ka mid noqoto u tartamayaasha kadis ayay igu noqotay runtii wax culus oo aan qaadi karinna way ila muuqatay jagadaa culus iskumaan wadin su'aalse ayaan isweydiiyey suurtagal ma noqon kartaa anoon weli ka jawaabin ayuu igu yidhi waad ka soo fakari kartaa arrinka qaado waqtigaaga jawaabtana igu soo celi bushaaro ayaan habeennimadii u sheegay arrinka macallinku ii soo bandhigay wax kale imay odhan aan ahayn dee maxaad sugi markaa way igu sii adkaysay habeenkaase wax go'aan ah anoon gaadhin kase fakaraya waxaan fali lahaa ayaan seexday subaxnimadii dambe ayaan kacay diyaarna u noqday la kulanka Mahdi macallinkayga waxaan ugu tagay xafiiskii salaan diiran ayaan isweydaarsanay isagoo u muuqda jawaab gaar ah in uu iga sugayo ayuu yidhi hayaha amal waan soo rogrogay taladaadii diyaarna waan u ahay inaan u tartamo jagada ayaan ku idhi bravo ayuu yidhi waan hubaa inaad wax badan qaban doontid waxna meeshan ka bedeli doontid waqtigu wuxuu iskuraba maalmo kooban ayaa ka harsanaa doorashadii 3 qof oo kaliya ayaa soo gudbistay warqadda u tartamista jagada sanadlaha ah waa aniga gudoomiyihii hore oo aadam iyo Muhammad oo isna ka tirsan xubnihii firfircoonaa ee aadam la shaqayn jiray runtii ma jirin xifaaltan saayida iyo isbarbar orodka jagooyinkan oo kale looga bartay kii soo baxaaba mid naga mida ayaan u arkaynay ayaamaha waxaa qaybaha kala duwan ee deegaankayga aad looga hadalhayay doorashadan soo socota isbeddelka iman doona waa la naawilayay kaliyaata
hal isbuuc ayaa naga xigay 2 cisho oo keliya ayaa ka harsan doorashadii waxaa la isugu yeedhay rag iyo dumar intii meesha joogtay howl weynna la soo fadhiisiyey saddexdeedii tartame maamulkii meesha iyo madaxda sare ee ururka ka socotayba waxaan fadhinay meel ka sarreysa halka ehelkaygii la soo tubay waxaa hordhac ahaan loo siiyey in hogaamiyihii sanadlaha ahaa maalinta salaasada la dooran doono waxaa xigay khudbado kooban oo mid kasta oo naga mid ahi ku soo bandhigay wuxuu qaban doono aadam iyo maxamed markii ay dhammaysteenna ayaa anna la ii yeedhay hortooda ayaa soo istaagay indhaha ayaan mariyey intaanan hadal anoo dhowraya daqiiqadaha kooban ee la siiyey waxaana ku bilaabay sidan la socda waday qaybta inoo xigta qaybteenan maanta sheekadana waxaa qoray qoraa cabdilaahi saalax axmed